soo diyaariyey haashim sheekh cumar good. kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal-abuurka oo toddobaad walba maalinta axadda aad ka dhegaysataan idaacadda dahurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijkeenna toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada boorame ee gobolka awdal waxaan ku soo qaadan doonnaa hal-abuurro dhanka ganacsiga ah oo dhallinyarada ku nool magaalada boorame dhowaan soo bandhigeen kadib markii ay ka qayb galeen tartan la xidhiidha hal-abuur ganacsi oo dalladda nagaad u qabatay dhallinyaro gaadhaysa 50 dhallinyaro ah oo ka qalin jabiyey jaamacadaha gobolka. tartankaasi oo 8 kooxood ku guulaysteen in ay hal-abuurkooda ganacsi u helaan maalgelin gaadhaysa $3,000 ay ku bilaabi doonaan. waxaa barnaamijkeenna toddobaadka inoogu martiya 2 kooxood oo dhallinyaradaasi ka mid ah soona bandhigay hal-abuurro ganacsi oo ay ka ganacsanayaan farsamaynta midhaha ka soo go'o dalagyada beeraha waddanka iyo hal-abuur ganacsi oo isna ah dhanka abuurka dhirta iyo midhaha la quuto. ugu horreyn kooxda dhallinyarada ee darsan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho ayaan wax ka weydiiyey hal-abuurka ganacsi ay soo bandhigeen islamarkaasina ay ka mid noqdeen guulaystayaashii dhallinyarada hal-abuurka soo bandhigtay ahaa. magacaygu waa habboon xabiib cabdulaahi ka socota gruubkan dalsan bowdher company. dalsan company waxay qaban doontaa dalagyada dalka ka baxa oo dib loo shiiday sida tujurta oo loo yaqaano digirtoo la shiiday, shuurada iyo budada, iyagoo ku samaysan package ama moor oo kale ah. waxaa laga yaabaa makiinadaha dalka ka shaqeeya ama gobolkan awdal ka shaqeeya inay maqrib wixii ka dambeeya ayna shaqayn karin. marka waxaan fikirkan ku soo qabsanay inaan samayno si looga heli karo dukaanka kuugu dhow shuuradiiyo rubuc, 2 rubuc, 3 rubuc aad u samaysan karto. caqabadaha inta badan dadka ka haystaana waxay yihiin maadaama galaanka ama koombada sida loo yaqaano la siiyo 10,000 oo shilin ama 4,000 oo Soomaaliland marka ay garowga noqoto, in galaan wax ka yar ayna cidna shiidin. marka dad badan inay awoodi karaan, dad yarna inaanay awoodi karin inay galaankii soo shiitaan. marka waxaan u fududaynaynaa dadkii danyarka ahaa si ay ugu iibsan karaan 1 shilin, 2,000 oo shilinka Soomaaliland. baan ugu mahad celinayaa dhammaan v o a. horta ganacsigani waa hal-abuurka cusub gobolka. marka horta ganacsiga sidiisa waxaa soo saarta baahi marka la arka ayaa la raadiyaa xalkeeda. wuxuuna ku yimid xalkani markaan aragnay baahida ka jirta degmada boorama iyo gobolka awdalba inaanay dadkii helaynin budo xilli walba aan la helaynin, laakiin waqti yar la helayo, taasoon weliba aan caafimaadkeegu mid la ilaaliyay aanu ahayn. annagu waxaan kor u qaadaynaa tayadii caafimaad ahaan waqtiyadii la helayay, sidoo kale in leefalii kala duwanaaye bulshadu ay awoodi karto. waxaa laga yaabaa in qofku hadduu lacag haysto uu mar uu iibsan kara, laakiin kuwii danyartii aanay wada iibsan karin maxaa la idhaahdaa jumlad, laakiin aan u fudaydinayno inay iibsadaan qiimo jaban iyagoo xidhxidha, iyagoo in mar ay isticmaali karaan. laakiin waxaa laga yaabaa in xaafaddu ay mar wada iibsan jirtay, ayna ka xumaan jirtay. haddeer waxba kama xumaanayaan, marba intuu doone qofku xaafaddu doonto ayay qaadan doontaa insha allahu tacaala. magacaygu waa cabdilaahi cali warsame. halkan waxaan ka salaamayaa v o a-da gaar ahaan wariye haashim oo maanta noogu wareysanaya hotel sow. fikirkan markii hore markaan waxaan ku soo galaynay tartankana waxaan ku soo galay fikrado kala duwan, gruub baan isku qaybnay. maxaa waxaan isweydiinay socon kara, qof walba fikirkaagii hore ka imo fikir cusub aan isla wada qaadano. waxaa macquul noqday waxaan suuqa ka jirin inaan kusoo gudbino bulshada aan usoo bandhigno, oo hadduu jirana aanu ku badnayn wadanigii cuntada wadaniga si looga helo haddaba bulshadii baahidii bulshada aan aanu u daboolo sidaan annagu ugu talagalay qorshahayagu yahay inaan bulshadii markasta u keenno barodhagiyaan soo saaraynay oo diyaara ay ka heli karaan, si fudud ay gu heli karaan dukaan kasta u dhow iyo tuulooyinka baan geyn karno. dukaanada iyo baqarada wada dhigno ayaan uga sii gudbi doonaa tuulooyinkaas leenahay. ganacsigeena inuu guulaysan doonaa rajaynayna. hawshan waa hawl u baahan dhaqaale iyo maalgelin. yaa idinka maalgelinaya hawsha noocaasa iyo fikirka ganacsi ee maskaxdiina ka guuxaya maadaama aad tihiin dhallinyaro ka soo baxay jaamacadaha waddanka? aad baad u mahadsantahay, waa su-aal aada u fiican. waxaana maalgelinayaa
unisef iyo nagaad. tartankan markii hore waxaan ugu guuleysanay nagaad baa waxay soo sheergaraysay in ay 50 qof oo dhalinyaro ah ka qaadato magaalada Boorama. markaa tartan baa loo soo galay 50 qof ee ugu fikrada fiicnaa ee ganacsi fikiro kala duwan baa soo bandhiganaya. markaa qof walba fikir gaar uu kusoo galay. markaa 40 qof waxay ku guuleysteen 40 qof waxay ku guuleysteen tartamihii. 2 group oo ka mid ah lacagtoodii budgetkii markaa ay nagaad ku bixinaysay magaalada Boorama markii ay la waayay laba group oo ka mid ah waxay soo bandhigeen inay sameeyaan competitive oo ay dhalinyartii dib u tartansiiyaan si lacagahoogii loogu biiriyo kambaniyo ka mid ah kuwan ku soo baxay. markaa aad baa ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo qoladii kaalinta labaad ku guuleysatay. Khalid haddaan isagana dhankiisa wax ka weydiiyo, waxaa jira bangiyo bixiya deymo. bangiyada bixiya deymaha maadaama tiin dhalinyar hal abuur ganacsi la yimid, iyaga laftooda ma laga yaabaa inay siiyaan deyn aad ganacsigiinan kusii maalgelisaan? waad mahadsan tahay haashimow. horta runtii way jirtaayo nagaad waxay fududaysay inay garantii ka noqoto inay bangiyadii ku aamini karaan oo hadduu ganacsigaagii wax carqalad ku timaado ay ku siin karaan deyn. nagaad baa garantii ka noqonaysa inay kuu fududaynaysaa. brograamkana wuu noo sahlayaa. markii hore ma jirin waddo aan u marno bangiga, laakiin imika waxaan haysanaa waddo aan u marno bangiga oo nagaad baa garantii ka noqonaysaa inaad lacagtaas aad ganacsigaa wado, lacagtana lagu aamini karo, kadibna aad iska soo celin karto xilliga aad ku ballantaan. barnaamijkan marka uu dhaqaaqo ganacsigiinni bilaabmo ma noqonayaa mid sii hirgala oo aad sii socodsiisaan? markii horeba sidoo qorshaha iyagu ahaa fikrada aan kusoo bandhiganay meeshan waxaan kusoo galnay maxay ahaanay inaan ganacsi midho dhala aan la nimaadno hirgelinayno. qof kastaba sidoo islahaa ganacsigaagaad hirgelin doontaa. iminkana markaan ku midownay maxay ahaanay ganacsigan iminka waxaan isleenahay ganacsi sustainability wuu noqon karaa sidaan ugu talagalay qorshaha iyagu yahay mid waari kara yaan ugu talagalay oo sii jira waqti dheer. higsiga kambanigan leeyahay waxa weeye inuu dalka horta gobol ahaan uu hagaftiro in laga wada heli karo agabkan soo saaranay oo dhammaystiran. marka daba baahiyaha tuulooyinka xataa ka jira sida Lughaya iyo Garbadada. mar aan Garbadada joogay waxaan arkay haruurka ay soo ridqadaan inay gabiile u soo doontaan. markaas kuwaasi waa baahi aan arkayo oo aan hore ugu sii tallaabsan karo inaan markuu kambanigaygii Boorama ka hirgalo inaan si fudud ugu dhoofin karo gobolka tuulooyinka hoos imaada. Khalid, dhalinyarta muxuu shaqo abuur u samaynayaa ganacsigiina? horta ganacsigan waa fikir aad u ballaaran. gobolka iyo dhalinyarta shaqo abuur ballaaran buu u samaynayaa runtii. waana ganacsi mustaqbalkiisa leh oo mustaqbalka waxaan higsanaynaa inaan ballaarino dhammaan qaybaha kala duwan ee dalka aan gaarsiino, kaasoo mar walba ballaadho uu shaqaalihiisu badan doono, dhalinyar badanna uu shaqo gelin karo. markaa shaqo la-aanta gobolkana uu xal u noqon doono insha allahu tacaala ayaan